gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cumar Maxamed Cumar Filish xildhibaan Cabduqaadir Carabi oo kamid ah mudanayaasha baarlamaanka golaha shacabka Soomaaliyeed taliyaha qaybta guud gobolka Banaadir ee ciidanka booliska Soomaaliyeed Sareeye Guuto Saadaq Cumar Xasan taliyaha nabad sugidda gobolka Banaadir iyo maamulka degmada Wadajir ayaa howlgal kormeer ah ku tagay wadada isku xirta Muqdisho iyo deegaanka Jasiira ee gobolka Shabeellaha Hoose. howlgalkan ayaa ujeedkiisu ahaa mid looga hortagayay kooxo burcad ah oo dhac iyo boob iyo dilba u geysta shacabka u dalxiis taga xeebta Jasiira. sidoo kale kooxaha burcadka ah ee wadadaasi dhac ka geysta ayaa maalmihii ugu dambeeyay dhexdooda ku dirirayay wadada isku xirta Muqdisho iyo deegaanka Jasiira, dagaalkaas oo sababay khasaare kala duwan. dadweynaha u dalxiis taga xeebta Jasiira iyo deegaanka Baydhaxan ayaa joojiyay maalmihii ugu dambeeyay isticmaalka wadadaasi iyagoo qaatiyaan ka taagnaa dhibaatooyin kala duwan oo ay la kulmaan xilliga ay dalxiiska ku jiraan. duqa magaalada Muqdisho mudane Cumar Maxamed Cumar Filish ayaa tilmaamay inaan loo dulqaadan doonin in qof muwaadin Soomaaliyeed ah wadadaasi lagu dhibaateeyo isla markaana si sharci darro ah shacabka korkooda lagu dagaalamo. mas-uuliyiinta iyo saraakiisha ciidanka amniga ayaa qayb u kormeeray goobaha fariisimaha u ahaa kooxaha burcadka ah iyadoo la qorsheeyay ciidamo gaar ah oo ka tirsan booliiska kuwaas oo ka howlgali doona wadada isku xirta magaalada Muqdisho iyo deegaanka Jasiira si shacabka Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Muqdisho ee u dalxiis tagaya xeebta Jasiira iyo xeebta Baydhaxan ay si nabadgelyo ah u isticmaalaan wadadaasi. Nuur Saciid Haliil, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, magaalada Muqdisho.